الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. ومركله xalqadeennii saddexaad ama fadhigeennii saddexaad ee aynu kaga hadlayno haddii allaha awoodda leh uu ogolaado tilmaamaha ruuxa wanaagsan. waxaynuna ka hadalnay fadhigeennii koowaad iyo kii labaadba waxaynu kaga hadalnay sifatul amaana, amaanada iyo qaybaheeda ay u qaybsanto. waxaynu u qaybinay laba qaybood oo ay soo hoosgelayaan qaybo fara badan. qaybtii koowaad waxaynu kaga hadalnay amaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka uu ku aaminay oo ah waajibaadka iyo takaaliifta sharciga ah. qaybta labaadna waxaynu kaga hadalnay xiriirka iyo mucaamalaadka bini aadamka dhex mara, wixii ammaano ee sharcigeennu kitaabka iyo sunnadu ay ammaano ku tilmaameen. qaybtaasaynu xalqadii labaad ku jirnay, iyadaynuna xalqadeennan saddexaad aynu ku gebagabaynaynaa. waxyaabaha sharcigeennu uu ammaanada ku tilmaamay waxaa ka mida ruuxa muslimkaahi inuu naftiisa iyo maalkiisuba ay kaa badbaadaan. xoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa muslimkaa uu ugu deeqay iyo nafta alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka mid tahay. rabbigeenna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi waaataakum min kulli maa sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar. rabbi wuxuu idiin hibeeyey wax kastoo aada weydiisateen iyo waxaydan weydiisanba alle waa idiin hibeeyey subxaanahu wa tacaala. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay haddaad isku daydaan nicmooyinka alle subxaanahu wa tacaala inaad tirisaan ma koobi kartaa nicmooyinka alla idiin galay. ammaanada marka walaalayaal waxaa ka mid a ruuxa muslimka ah naftiisa iyo maalkiisuba inay kaa badbaado ayaa ka mid a. wuxuu nabigeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu ku odhanayaa xadiiska imaamu axmed fii musnadihi ku warinaya saxiixa ah min xadiisi abi hurayra baa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yaddih. muslimku waa ruuxa muslimiintu ay ka nabadgalaan, carabkiisa iyo gacantiisaba ay ka nabadgalaan. waxay soomaalidu tidhahaa af iyo adinba waa in laga nabadgalo. wuxuu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waalmu'minu man aminahu nnaasu calaa amwaalihim wa dimaa'ihim. ruuxa mu'minka waxa weeye waa ruuxa dadku ay ka badbaadaan, maalkooda iyo dhiigoodaba ay kala badbaadaan ayuu yidhi nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi. ruuxa muslimka ah dhiiggiisa inaad xalaashato oo ku aaminay waxay noqonaysaa ammaanadii iyo ballantii oo aada burisay bay noqonaysaa. dabaraani fii mucjamihi wuxuu ku warinayaa, bazaarna yani fii musnadihi uu ku warinayaa inuu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi ida dma'ana arrajula ninku hadduu ruuxa uu ku xasilo inuu magan gelinayo oo naftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisa u badbaadinayo faqatalahu oo markaa uu dilo, nebigu wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayhi fainahu yuqaamu yowma alqiyaama liwaau qadrin. maalinka qiyaame waxaa loo taagi doonaa, gadaashiisa waxaa laga taagi doonaa calan iyo bandiirad loo yaqaano, yacni calankii ay ku qoran tahay waa fulaan hebel hebel ballantii uu buriyey, yacni iyo ammaanadii uu buriyey iyo ballantii uu ka baxay
waxaa la odhanayaa wahaadihi qadratu fulaan, halkaa calan khalaa'iqda iyo makhluuqa oo dhani uu daawanayo ayaa gadaashiisa laga taagaya. maxaa loo taagaya calanka? waxaa la rabaa maadaama ammaanadii uu xifdin waayey, ballantiina uu ka baxay, khalqiga in lagu fashilo, macsharka in lagu fashilo ayaa la rabaa oo loo baahan yahay. waxaa nebigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ammaanada uu ku tilmaamay, waxaa loo yaqaano sirta, adiga iyo ruux kala waxaa idin dhex maray wuxuu kugu aaminay inaad xifdido ilaalisaa loo baahan yahay. waxaa nebigeennu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh, xadiiska abu daa'uud, tirmidi iyo keyrkood ay warinayaan, ayuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi idaa xadasa arajulu alxadiisa uma iltafata fahiya amaanatun. hadduu ninku war kuu sheego kadibna isagoo kuu warramayo uu hareeraha daymoodo fiirfiiriyo, nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi fahiya amaana, waa ammaano. uma baahna inuu ku yidhaahdo waa sire qari, looma baahna inuu ku yidhaahdo afkeennu waa isu ammaan. nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh idaa xadasa arajulu alxadiis uma iltafata fahiya amaana, buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. bulshada soomaalidu sir ma leh. tarbiyada iyo akhlaaqda islaamku uu ku barbaarinayaa waxay tahay ruuxu inuu sir yeesho. almajaalisu lilamaan, fadhiyadu waa ammaan. waxaa adiga iyo qof kale idin dhex mara ha ka sheekaynin. ruux baa wuxuu odhanayaa bulshada soomaaliyeed ka mida, qof intuu waru sheego wuxuu odhanayaa waxani waa sire qari, markaasuu isna mid kale u sheegayo wuxuu odhanayaa waa sire qari, kii kalena mid kale usii sheegaya wuxuu leeyahy waa sire qari. ilaahay baan idinku dhaashay, waxaasi sir ma noqon karta, sir ma noqon karto. waxay keenaysaa ruuxu waa inuu ku barbaaro, yacni ammaanadana waxaa ka mida inuu sirta u xifdiyo. adiga iyo ruux kale wixii idin dhex maray bulshada ha dhex keenin, miidhiyaha iyo iclaamka iyo websaydada ha dhex keenin, ammaan ha ahaato. nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fahiya amaana, waa ammaanuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. laba ruux baa isqabanaya, saaxiibbay ahaayeen, isku shaqay ahaayeen, meel bay ka wada shaqaynayeen, isku wasaarad bay joogeen. waxaa laga yaabaa midi midkii kale waxyaabihii uu ku siraystay iyo ceebihiisii inuu bannaanka soo dhigo. laba shaksi baa yani ganacsi iyo xiriir baa dhex maray, way isqabteen, carab iyo laba daan baa isugu dhowo, waa isqaniinaan, kii kale ceebihiisuu bannaanka keeni. arrinkaasi ma aha tilmaamaha ruuxa wanaagsan. tilmaamaha ruuxa wanaagsani waxa weeye waa ruuxa wixii xiriira isaga iyo qof kale dhex maray ee lagu aaminay xifdiya ee sirta leh wey. qodobka saddexaad ee ammaanada aynu kusoo khatimayna aada ugu dheeraanaynaa waxa weeye mas-uuliyaadka iyo xilalka ummadda muslimiinta loo hayo waa ammaano ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu aaminay. qaab wanaagsan oo ilaashan oo hantida muslimiinta, dadka bulshada muslimiinta aada ilaalinayso, oo arrimaha masaalixda ee caamka aada ka hormarinayso dantaada khaaska ah, ayaa looga baahan yahay ruuxa muslimka ah. waa ammaano iyo xil lagu aaminay wa, ama ha ahaadeen xilalka diiniga ah ee yacni fatwadii iyo qadihii iyo yacni imaamnimadii iyo mu-adinnimadii iyo hay-aadkii islaamiga ee ruuxu uu gacanta ku hayay, intaba waa ammaano lagu aaminay inuu xifdiyaa loo baahan yahay. xilkeedii guto sida ugu habboon ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku raaligelinayana inuu u gutaa loo baahan yahay. waxaad nooshahay waa maalmo tirsan, maalin kastoo qoraxdu kuusii dhacdana qabri baad u dhowaanaysaa. qabrigaas suurada iyo imtixaanka aad kala kulmaysana waa ka duwan yahay imtixaankan adduunyada, waa ka duwan yahay. waxaa ku sugaya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun
ilaa man ata allaha biqalbin saliim. dhanka kale haddaan ka fiirino mas-uuliyaadka ummadda loo hayo ee hogaanka iyo xilka siyaasiga ee lagu dhiibay ee noloshooda adduunyada loogu habaynayo, yacni waa ammaano lagugu aaminay oo la doonayo inaad gudato. inay sidaa tahayna waxaa nooga warramaya qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala ayaa nooga warramayo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicima yacidukum bih ina allaha kaana samiican basiira. baa la leeyahay subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu leeyahay alla wuxuu idin faraya an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha, amaanaadkii inaad ehelkeedii u gudataan. mas-uuliyadda iyo hogaanka iyo talada bulshada muslimiinta ah, yacni waa in loo eegaa alaslax falaslax yaa ku habboon. wuxuu alla leeyahay subxaana wa tacaala waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli, dadka markaad kala xukumaysaan, markaad u garsooraysaanna waa inaad cadaalad aada u samaysaan oo aada u garsoortaan. kanaanu isku haybnahay, kanaanu isku meel ka soo jeednaa, kanaanu isfahanaa, kanaanu wax wada qarsan karnaa, kanaanu isku guruubnahay, waxaasoo dhan looma baahno. ammaanada inuu ruuxu xifdiyaa loo baahan yahay. nabigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo caddaynaya inay ammaano tahay xilkaasi, xadiiska imaamu muslim fii saxiixi uu ku wariy min xadiisi abi dar ayaa abu dar baa wuxuu leeyahy ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed baan u imi. majaalistii iyo golayaashii ummadda uu ku tacliiminayay khayrka iyo samaha ku farayey ee ceelka saafiga uu ka waraabinayay ummaddii uu tarbiyeynayey ayuu ka mid ahaa. waan u imi buu yidhi. markaasaa waxaan idhi buu yidhi alaa tastacmilunii yaa rasuula allah, rasuulka ilaahay uu mas-uuliyad iyo xil miyaadan ii dhiibayn? maad i shaqaalaysid? maad mas-uuliyad ii diratid? muxuu sameeyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi? fadaraba biyadihi calaa mankibi, garabkuu iga garaacay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, gacantuu igaga dhuftay. waa tilmaan nebigu wuxuu rabaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, gacantan uu ku dhufanayo wuxuu ka doonayaa inuu baraarugo oo hadalkiisa si fiican u dhuuxo. wuxuu ku yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, yaa abaa dar innaka daciifun wa inaha amaana. abaadarow, adigu waxaa tahay nin daciifa, mas-uuliyaddan iyo xilkan iyo talada muslimiintuna waa ammaano, ayuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. markaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh sii wada wuxuu yidhi wa inahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama, maalinka qiyaamana waa dulli iyo qoomamo. intee su-aalood baa kuu taalla? ka waran khalqiga intaa leeg hadday ku qabsadaan oo gondahaaga lagu soo shiriyo ayagoo qof waliba xuquuq yacni markaa aad ka lumisay uu kuu sheeganayo, ka waran mas-uuliyaddaas. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yihi waan tiraanyo iyo qoomamo buu yidhi maalinka qiyaame, ilaa man akhadahaa bixaqiha wa ada aladii calayhi fiiha, ilaa ruux xaqeedii ku qaata, ammaanadii iyo xilkeedii guta, garsoorkeedii iyo cadaaladeedii guta, masaalixdii ummadda iyo danihii caamkaa ka hormariya, danihiisa iyo danaha reerkiisa ka hormariya mooyaane. riwaayo kale oo imaamu muslim fii saxiixii ku warinaya wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh, yaa abaa dar innii araaka daciifan, abaadarow waxaan ku arkaa inaad daciif tahay, laa tawaliyanna bayna snayn, yacnii laba dhexdood ha maamulin oo mas-uuliyaddooda iyo xilkooda ha qaadin. wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa tawalayanna maala yatiim, xoolo agoomeedna mas-uuliyaddooda ha qaadin. aan isweydiinno marka walaalayaal, abu dar waa saxaabiga nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka yidhi dhulka iyo cirka dhexdooda kuma noola ruux abu dar ka run badan, ayuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh.
معناها أبو در حلك النبي صلوات الله والسلام عليه وقوم الديدين ضعف الشخصية أو حلك إنا نقودن كريمة لكن وحو وجودي النبي صلوات الله والسلام عليه الروح كستو مسلم ومسؤولية دا عرريا إنه فهمنا اللوبة هي وحو وجودي النبي صلوات الله والسلام عليه وحا كرة تمية هي حلك وين وحنا كدرينسينا يا نبي إنه صلوات الله والسلام عليه أبو در روايات كقار كود مركو الله وحوري إني لا أحبك أبو در وأنكو تعله وأحب لك ما أحب لنفسي وحنا كل جعلها وحنا نفسد إذا لا جعلها أيام كل جعلها بكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسؤولية داسي مركا لودي بالروح عن أهل وعين وحلك أوقاته النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمدد بدن وحلك هي مسؤولية دا عن أهل وعين أي تونك أوريتان وحو النبي صلى الله وسلم عليه كنت المامي ومعلم وأستان إيه علامة كمدة علاموين كقيامها أي كنت المامي النبي صلى الله وسلم عليه حديث إمام البخاري في صحيحه وكورني من حديث أبي هريرة فالنبي عليه صلى الله وسلم عليه إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مركة تلدا إيه حلك مسلمين تإيه هجانك loo dhiibo cid aan ehel u ahayn buu nabigu yiri salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi hogaanku maaha sida dadku ay u fakaraan caalamul islaami ninka talada ugu sareeyo oo kale maaha keligi maaha waa yaani hogaan xil kasta oo muslimiinta loo qabanayo marka loo dhiibo cid aan munaasab ku ahayn nabigu wuxuu yiri salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi fantadir saa'a wuxuu ka horeysiyay nabigu إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة مركا أمانة دي لضيعوا ساعة قيام السوق ومعلم وأستان لغو قرانيو أستامو علامة لغو قرانيو علامات كقيامها لغو قرانيو ويجي صحابة مركا أبو هريرة وحوي ويديي يعني وحانا قلت كيف إضاعتها يا رسول الله سيديبا أمانة الله ضيعيها أمانة الضيعات ديدو سيديبا يتحي النبي يقول إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مركا لو ديبو تلدا إيه حلك مسلمين مسؤوليات كدينية إيه كوة سياسية يهوغانك أمدا بلشدا لغو بدبادينيو أو لغو هاقيو أو لغو حباينيو لغو أغاسيميو نولشو دا الدنيا دا لغو أغاسيميو مركا لو ديبو عيدان إهل وحين قيامة دي سوغا بيرنبي صلوات الله وسلام عليه dhanka kale nabigu salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi ruuxa mas'uuliyada intuu qabto xilkiisii gutay ilaahay wuu amaanay subhanahu wa ta'ala rasuulkuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuu amaanay rasuulku wuu amaanay oo wuxuu rasuulku uu ku amaanay xadiiska fi sahihayn min xadiis abi hurayra baa nabigu wuxuu yiri al-khazinu al-amin ruuxa khasnad hayaha ee aaminka abu nabigu yiri salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi الذي يعطي ما أمر به كاسو بحنا وحي الله فري عدة مجتمع يبلشد مسلمين تكمدا حولها يهنتدا وهي عدي ورقد لوغو سو قرو الله فر الله يراهدو سي ايو سينا مسالح ذا ومد وحيا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أحد المتصدقين فهو أحد المتصدقين يعني وحو لمد yahay kuwa sadaqada la baxay mid kamid uu lamid yahay yani annaga mujtamaceena waxaan ku barbaarnay mujtamacaadkeenu ay ku barbaareen caalamul islaami in badan oo kamida mujtamaca Soomaaliyeedna ay ku barbaareen mas'uuliyadka ruuxu marka uu qabto inuu uga fikiro dantiisa iyo noloshiisa adduunyada oo kaliya laakiin masaalixda caamka aan uga fikirin معناها وانحراف وتربيه وباهن بلشده ان laga saxo yaani marka oo dib loo tarbiyeeyo oo khalalkaas iyo bulshadu fahankaas ay lahayd in dib loo toosiyo wixii ay naga qalloocday inaynu dib u toosino ayaynu u baahna maanta hadii la yiraahdo mujtamaca Soomaaliyeed la yiraahdo waxa la dhisayaa dawlad baa la dhisayaa la yiraahdo qabiil waliba wuxuu rabaa wasiirka maaliyadda hana la siyaa la leeyahay maxay ka rabaan wasiirka maaliyadda waxay rabaan wasiirka maaliyadda waxa la rabaa qolo waliba oo qabaa'ilka iyo mujtamacaadka Soomaaliyeed kamid waxay rabaan
in badan oo ka mid ah hantida caamka ee ummadda in la dhacay rabaan markaasaa la oranaya anagu waxaan rabnaa wasiirka maaliyadda hada wasiirka maaliyadda intee buu qaadi intee qof buu noqonaya reerkan marka wasiirka maaliyadda la siin waa cadhoonayaan laakiin hadduu qofka xilkan mas-uuliyadda ummadda u qabanaya noocuu doono ha ahaade mas-uuliyad ummadeed ruuxa qabanaya hadduu ammaano yeesho ilaahay agtiisana waa badbaadaya mujtamaca muslimka agtiisana qiimo ku yeelanayo bal nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu gaadhsiiyey ruuxii sadaqada soo ururinayay waa jago iyo mas-uuliyaadka muslimiinta meelaha ugu hooseeya laakiin waa meelaha kaydka iyo dakhliga uu ka soo xeroonayo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska xaakim iyo daarimi iyo keyrkood ay warinayaan wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi alcaamilu cala asadaqati bilxaq ruuxa caamilka ah ee sadaqada ka shaqaynaya ee soo ururinaya si xaqa u maamulaya u soo ururinaya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yacni fahuwa kalmujaahidi fii sabiili illaah xataa yarjica ilaa beytihi wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu la mid yahay ruux mujaahida oo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ku jihaadaya kelmadda ilaahay subxaana wa tacaala yacni ku halgamaya ayuu la mid yahay ilaa uu gurigiisa uu ku soo laabanayo waa ammaan loo jeedinayo ruuxii mas-uuliyaddii iyo ammaanadii si xilkasnimaa u gutay ammaan loo jeedinayo waxaan u baahannahay marka yacni mujtamaca noocaasee sidaa u fikiraya maaha kooxda yacni koox kasta oo mas-uuliyad haysa keligood inay iyagu khaladka leeyihiin laakiin mujtamaca ay ka imaanayaan dadkan mas-uuliyadda iyo hoggaanka qabanaya yacni waa inuu yahay mujtamac dareenka iyo tarbiyada ku tarbiyoobay oo ku fikiraya waa inuu yahay ammaantaas buu leeyahay sida nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tilmaamay mas-uuliyaadka xagga diiniga haddaynu eegno xadiiska imaamu tirmidi abu daawuud ay warinayaan wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alimaamu daaminun waalmu'adinu mu'tamanun allahuma arshid ala'ima waqfir lilmu'adiniin wuxuu leeyahay imaamku waa daamin salaadii iyo bulshadii muslimiinta diintoodii baa lagu aaminay a'imada masaajidada tujinaya salaada muslimiinta wixii ku yimaada khalalkeedii bay daamin ka yihiin maxaa yeelay imaamku salaadii iyo wixii ku imaanaya iyo axkaamteedii iyo muxuu ahaa salaadii maxaa burinaya waa inuu aqooniyo cilmi u leeyahay haddii salaada dhexdeeda mushkilo ku timaado waa inuu xallin karaa fiqi ahaan oo fahmi karaa muadinkana waxaa loo xil saaray ummadii awqaada iyo waqtigeedii inuu u ilaaliyo markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi labadoodiiba u duceeyey waqtigaad suxuuranayso iyo waqtigii yacni aada cuntada ka kaaftoomi lahayd iyo waqtigii aad ka kaaftoomi lahayd xiriirkii gogoleeda xaaskaaga aada la samaynaysay xilka iyo mas-uuliyadda waxaa kuu ilaalinaya muadinka masaajidka kuu ilaalinaya markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi allaahuma qfir yani ilaahi subxaana wa tacaala allaahuma arshid ala'ima waqfir lilmu'adiniin ilaahay oo a'imadana u dembi dhaaf a'imada ilaahu hanuuniyo toosi oo wixii gefa ka ilaali mu'adiniintana ilaahu u dembi dhaaf ayuu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay culimmadeennu uga qiyaas qaateen labadaa jago ee mas-uuliyaadka jagooyinka muslimiinta ka mid a xil kastoo muslimiinta loo hayo hadday tahay qadihii iyo xukunkii waa ammaano lagu aaminoo la doonayo inuu xifdiyo hadday tahay ninkii caalimka ahaa ee cilmiga xambaarsanaa ee fataawida sharciga bixinayay waa ammaano ninkii sheekha ahaa ee daaciga ahaa ee dacwada iyo risaalada fariinta alle subxaana wa tacaala khalqiga gaadhsiinayay waa ammaano lagu aaminay oo la doonayo yacnii inuu ammaanadaa ilaaliyo ummaddii wixii ilaahay subxaana wa tacaala baray uu gaadhsiiyo asagoo ka fekeraya maslaxada ummadda asagoo ka fekeraya dacwadan iyo muhiimadeeda asagoo ka fekeraya alahamu falaham ayaa la doonaya waa inuu u damqadaa dareen iyo naxariisna uu hayaa bulshada muslimiinta ah yacni markaa uu haya dhanka kale ee nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay min aclaami nubuwatina waxaa ka mida inuu nebigu tilmaamay
inay bulshada muslimiinta ay soo mari doonaan waqtiyo yacni markaa miisaanka iyo halbeega waxa lagu miisaamayaa uu khaldamayo. waa waqtiyada hadda aynu ku jirno caalamul islaami intiisa badan uu ku jiro. maxaa wax lagu dooranayaa? maxaa ruuxan lagu xulanayaa? yacni maxaad haddii ilaahay kuu ronya inuu hoggaan kuu noqdo maxaad ku aamini? nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiiska imaamu axmed iyo ibnu maaja ay warinayaan ee saxiixa baa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi sayaأtii cala annaasi sanawaatun khadaacaat. dadka waxaa soo mari doona taariikh nololeedkooda iyo waqtiyada ay nool yihiin waxaa ka mid noqon doona sanooyin khiyaamo ku dhisan. wax isdabamarin, khiyaamo, halbeega sanooyinkaasi ay leeyihiin waxa weeye iyo karateeriyada wax lagu xulanaya waa khiyaamada. nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sanawaadkaas macaalim iyo astaamo lagu garanayo rasuulku tilmaamay. wuxuu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa yacni sanooyinkaa tilmaamaha lagu garanayo ka mid a yusadaqu fiiha alkaadib. waxaa la rumaysanayaa oo dadka agtooda qiimo kale ruuxa beenaalaha ah. halbeega iyo qiyaasta iyo waxa lagu qadarinayaa beentiisanba loo fiirsan maayo ee durbaanka uu u garaacayo ayaa la rumaysanaya. wuxuu nabigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wayukadabu fiiha saadiq. waxaa la beeninayaa ruuxa runlowga ah ayaa la beeninaya. mujtamacaadka waqtigaa nool waxaa laga yaabaa runtuba inaanay anficin oo dan u ahayn. ruuxu inuu been sheego, inuu wax isdaba mariyo, yacni inuu haddii ilaahay kuu runyo runta ka fogaado waa halbeegiisa nololeed. maxaa yeelay waa yacni waxa uu isleeyahay waxbaad ku helaysaa, xoogaa adduunyaha baad ku helaysaa. wuxuu nabigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wayukhawanu fiiha alamiinu. yacni yu'tamanu fiiha alkhaa'inu wayukhawanu fiiha alamiin. waxaa la aaminayaa ruuxii khaa'inka ahaa baa la aaminaya. waxaa yacni khaayin loo yaqaanaa ruuxii aaminka ahaa. waa calaamaadka iyo yacni tilmaamaha iyo macaalimta samankaas iyo waqtigaasi uu leeyahay. wuxuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wayatakalamu fiiha aruwaybida. waxaa hadli doona buu yihi ummadda masaalixdeeda caamka waxaa ka hadli doona dadka ruwaybidada loo yaqaano ayuu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. qiila wama ruwaybida qaala alrajulu taafih yatakalamu fii amri alcaama ayuu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waa yacni ruux safiiha oo aan waxba lagu aaminin, yani oo ka hadlaya masaalixdii iyo danihii ummadda u taagan. waana sida caalamulislaami maanta ay u badan yihiin dadka yani marka xilalka u taagan. in fiicanina waa jirtaa oo badan, yacni in badan oo aan mas-uuliyaad lagu aaminin, yacni markaa oo xataa guryahooda aan lagu aaminin oo xilka iyo mas-uuliyadda u taaganina waa jirta. waxaan u baahanay marka si aan ammaanada u fahanno xalqadeennan saddexaad aynu ku soo gebagabaynaynaa. ammaanadu sida diintu u taqaano kuma koobna wixii yar xoolo yar iyo hanti yar oo lagu dhiibtay oo qof agtaada dhigtay ama dukaankaaga u dhigtay kuma koobna. ee ammaanadu jawaanibtaa badan iyo dhinacyadaa badan bay leedahay. sharcigeennuna uu inoo tilmaamay. waxaan u baahanay marka inaan fahanno mujtamaceenna soomaaliyeed haddaan nahay, inaan fahanno maxaa asal noo ah. mujtamac islaamaan nahay, diin baan ku dhalannay, mabaadi baa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey. kitaab iyo sunne ayaa alle subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey. waxaan u baahannahay nolosha wixii inaga khaldamay inaan kitaabka iyo sunnada dib ugu saxno. waxaan u baahannahay nidaamyada aynu rabno inaynu nolosheenna ku maamulno, yacni inay kitaabka iyo sunnadu ay marjic u noqdaan ayaynu u baahanno. kitaabka iyo sunnadu ay asal yihiin. waxaynu u baahannahay mujtamaceennu inuu ku tarbiyoobo oo ku barbaaro intaanu mas-uuliyad iyo xilba ruuxu aanu isu sharixin, inuu ku barbaaro ammaano iyo cadaalad iyo sidqi iyo run inuu ku barbaaro ayaan u baahan.
waxaan u baahannahay mujtamaceena yani inaan ku barbaarino oo aan barno kala dambeynta iyo nidaamku faa'iidada uu leeyahay inaan barno ayaan u baahannahay. waxaa laga yaabaa wiilka 40 jirka ninka 40 jirka maanta hogaanka iyo siyaasiga iyo talada u sharaxan aabihiis ayaa muddo kooban dawlad arkay oo 60kii dawlad arkay, awowgiisna dawladba ma aqoon. bulsho reer guuraaya oo meel degan oo intaa 10 kilomitir yaan la ii soo dhaafin oo la ii soo dhawaanin, meeshaan anigu beerta ka faagtay cid kale ay u soo dhawaanin, dhaqankaasaan naqaan. waxaan u baahanahay marka mujtamaceena inaan barno nidaamka iyo kala dambeynay maxay tahay, dowladnimo iyo jiritaan maxay tahay, sidee baynu karaamadeenna iyo sharafteenna ku ilaashanaa inaynu mujtamaceena barnayno u baahno. mujtamaceena waa inuu barto maxaad aynu wada yeelanaynaa, waa inuu barto qawaasi mushtariga maxaa inaga dhaxayn kara. allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.